السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن سلام يا دمان أمد الصوماليات عد كان دقي سدونته وحنا كعد سنة يا ولي إن شاء الله إن سيفا فيان وتطبيق توان كبيش جون لوضع كوني تطبيق توان وهبين نمو ورمضان وحن هلاي ورقد كسابسن سر أضو مركا ka kashifantay dawladda Sacuudiga warqadani waxa weeyaan waa waqtigii waxa la qoray 2013 waxa qoray safiirkii Ethiopia u fadhiyay dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Ahmed Abdul Aziz ayaa lagu magacaabaa waqtiga dalka Sacuudiga taladiisa waxa hayay boqorkii dhintay boqor Abdullah marka safiirku waxa uu warqadan u diray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga marka wuxuu ka codsanayaa wuxuu u diray dalab uu diray dalabkaas oo ahaa dalabka uu wasiirku diray ayaa ahaa in ma aragtay wuxuu ka dalbaday macnaha wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayuu ka dalbaday in Soomaaliya 5 loo qaybiyo Sacuudi ahaanna aan caawino Kenya iyo Ethiopia danteena sidaas ku jirta ayuu leeyahay marka waxa tagnaa muranka badda ee u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya waxa uu leeyahay macnaha badan la isku haystana waa inaan Kenya caawinaa sidaas anaga macnaha danteena ku jirta Soomaaliyana waa inaan 5 u kala qaybinaa oo federalismka macnaha ay 5 waaxood noqotaa marka hadalkani ma ahayn ma aragtay hadal hadda cusub ama dhagaha Soomaalida ku soo dhaca ama social media soo gaara laakiin warqadan aan helnay baa waxay tahay warqad cadeyn ah oo qoraalkii barnaamijkii Anwar Cishqi oo uu fashilay Wikileaks uu fashilay uu sheegay oo dalka Djibouti sirti laga helay iyo barnaamijkan baa isdaba socda marka warqadan hadda la helay waana warqad markii dad aqoon-yahanaa oo Soomaaliyeed aan tusnay oo waliba ma aragtay aragti dheer oo Carabiga iyo waxaasna si fiican u yaqaanay warqadaha ay qoraan waxa ay sheegeen inay tahay warqadan warqad xaqiiq ah oo jirta marka Carabiga si fiican uma aqaano run ahaantii warqadan kulleeyay waa iska warqad la qoray waa dareemi kartaan marka hadii aan isku dayo Carabiga oo aan akhriyo wuxuu leeyahay صاحب السعودي المكي الأمير سعودي الفضيلة حفظه الله وزير الخارجية علينا أن نتعاون هذا وقيبتها هراء وقيبت كينيا بدي مرنكية وكاها الله يوحو ليه علينا أن نتعاون مع كينيا علينا أن نتعاون مع كينيا نزاع الحدود البحري بين الصومال وكينيا لصالح قضيتنا انت هراء وحوها الله بدي مركا اللي اسكو هايستي أنا قضيتنا كجرتو ليه انت دنبنا وحو يري تقسيم الصومال إلى 5 ولايات ومع العلم أنه لا يوجد من الصوماليين من يعارض فكر النظام الفدرالي لذلك أن نتعاون مع إثيوبيا قيبتها دبنا ساسو كلها هاي مركب dadka Soomaaliyeed waa inay ma aragtay Sacuudiga halka uu ka joogo ummadda Soomaaliyeed ama waxa uu la maagan yahay kala walba ogaayeen oo inay ogaadaan waayahoodan ay laabta ku haystaan warqadan insha Allah waan faafineynaa haduu Ilaahay idmo website badan baan u direynaa social media-hana si fiican baan u soo dhexgelin doonaa haduu Ilaahay idmo waxaana aan uga mahad celinayaa Cabdirasaaq Maxamuud Faarax oo warqadan isoo gaarsiiyay adinkana waxaan idin ka codsanayaa inaad share gareysaan barnaamijkan aan soo duubay inaad si faafisaan haduu Ilaahay idmo warqadan ayadoo toosan ma aragtay idin soo dhiganaa website-ka cagaarweyne.com Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhamaan ummadda Soomaaliyeed waa inaad ogaataan Sacuudiga inuu cadow yahay islaamnimo iyo waxaas aan la isku